shaqaalihii faqiirka ahaa ee jeclaaday gabadhii uu dhalay boqorka. Waa sheeko gaaban ama qiso jacayl uu ku dheehan yahay dhinacyo badanna taabanaysa. Inta aanan qisadeenan u gudagelin, waxaa iga xasuusinaa fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad aragta qalbi holcay 22 ha iga ilaawin inaad follow isoo dhahdo, halka cadna aad iga casayso wada jacayl aad ka dhigto. Boqor ayaa waxa uu dhalay gabar Allah iskugu daray qurux, akhlaaq, wanaag iyo weliba diin. waxaana loogu wanqalay gabadha iyada ah magaca Maryam waxaa maalin maalmaha ka mid ah ay si lama filaan ah u gaday silsilad dahab ah oo ay lahayd aadna qaali u ahayd si ay masjid hor Allah ugu dhisto. waqti yar kadib, masjidkii markii gacanta sidaa loogu qaaday, waxay doontay Maryam inay maalin soo eegto. dhammaan shaqaalihii ayaa amar lagu siiyey in ay faarujiyaan masjidka maadaama ay iyadu booqanaysay si aanay isku arkin iyada iyo shaqaalaha. markii ay soo gashay masjidka, misna ay iska qaaday indhashareerkii ama niqaabkii ay xirneed si ay ugu raaxaysato quruxda guriga ay aakhiro ka sii dhisatay. mid ka mid ah shaqaalihii ka shaqaynayay masjidka oo kor saarnaa misna lagu ilaabay oo isaga keligii masjidka ku baaqi noqday, waxa uu arkay inan aad u qurux badan. markiiba qalbigiisa taagta darnaa, waxa uu raacay inantii muuqa wanaagsaneed ee uu arkay. kadib markii uu ku noqday gurigoodii isagoo baraadla, maalinba maalinta ka sii dambaysay waxaa ku sii siyaadayay jacaylka aadka u weyn ee uu hayo Maryam, ilaa markii dambe jacaylkii uu soo ritay oo uu ka dhigay sariiryaal. shaqaalahan sida kadiska ah jacaylka uu ugu dhacay oo magaciisa la odhan jiray Cali. waxaa dhashay hooyo da' ah oo aad iyana u taag daran, cid kalena aan lahayn isaga mooyaane. hooyadii ayaa weydiisay wiilkeeda Cali waxa ku dhacay, waxayna ku tidhi, Cali wiilkaygiiyow, sidee lagu hayaa? waa adigaan furaashka ka kici waayee maalmahan. Cali oo u jawaabaya hooyadii ayaa yidhi, maama, waxa aan jeclaaday gabadha uu dhalay boqorka magaalada, welibana si xad dhaaf ah ayaan u jeclaaday. haddii aan guursan waayana waan dhimanayaa hooyo maxan. hooyadii da'da ahayd, iyada oo aad u dareemaysa xanuunka wiilkeeda sariiryaalka ka dhigay, misana inuu shaqo tago u diiday, ayaa isla markiiba waxa ay u jihaysatay dhankii ay ka xigtay yeelanta boqorka uu dhalay. talow maxaa ku dhici doona hooyada? maxayse kala kulmi doontaa boqorka iyo gabadha uu wiilkeedu jeclaaday ee misana ay u doontay? haddii aad ka hesho sheekadan jacaylka ah, misana aad danaynayso inaan ku soo daro qaybta labaad, follow isoo dheh, meesha cadna iga casee oo wada jacayl ka dhig. sidoo kalena kommentiga hoose ku soo qor part 2.